بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الواحد كسر دواتان ورئيسي قارو تلفزيون عالمي أريل تيفي ولا يلا دونا إن شاء الله مشرحة حلبان عبد القادر شامع إسماعيل عبد الدعار ومدوي كودن بيكوسونا جودها دلكن سومالي لان يو قراهان قبل هذا تقدر يو ديجانا دان وكشرح هاي أقوهرن حلبان مشرح بلوح كسر دوين تلفزيون عالمي أريل هذا ياد بنو له هي وانا ما سنتين بل حلبان واحد نو غور بحسا كل ورباهنتو قار كميد ay baahiyeen in aad lagu xiray kadib markaad shaacisay inaad musharax tahay waliina waxaad ku sugantay gobolka Togdheer bal wararka insha Allah bal tafatirkooda nasiib arintaasi waa arin aan sariir raatoon lahayn la ima xirin huleelkii aan ku jiray baan wali ku jiraa cid xariga la soo qaada oo aan ka wada hadalay ma jirto sabab lagu xiraano ma jirto marka waa arimo sariir raatoon aan lahayn oo ciyaal website dalay ay bumbuurinayaan si ay dhaqaale ugu helaan marka taas waxba kama jiraan weey waa hagaag marka inta kaga soo noqono musharax baa tahay xilibaan baad doonaysaa inaad noqoto insha Allah bal deegaanada aad ka sharaxan tahay iyo ma garanaysaa bal deegaanada ka sharaxan tahay iyo maartay waxyaabaha aad isleedahay haddaad soo baxdid waad ku soo kordhi kartaa Soomaaliland oo xilbaanadii hore ama maartay oo waxyaabii hore wada bedeli kartaa ama haddaa aad dacdidba tanaasul ma qaraa bal arimahan oo yeeshay marka hore waxaan ka sharaxanayaa gobolka ugu weyn ee xildhibaan iska sharaxo kursigan aan doonayaa irsaaq iyo daaroodba waa magaranaysaa waxbay ka wada qabsadaan si ay u soo baxaan kursigu waa kursi buuhoodle waa gobolka Togdheer markaa deegaanada Burco buuhoodle Qurulugud kaartada ilaa Coodanlaan ka sharaxay waa deegaan aad iyo aad u salbalaalan waxaana magaranaysaa deegaankaas ka codeeya isaaq gaar ahaan habar jeclo oo dhan iyo dhulbahante marka waxaan ku rajo weynahay 100% markaan isugu geeyay magaranaysaa inaan 100% aan ku soo bixi doono maadaama deegaanka aad la iga yaqaan maadaama aan leeyahay xildhibaano aad u badan oo culus oo ilaa buuhoodle jooga maadaama aan magaranaysaa aan karti badan iyo energy badan iyo dhaqaale badan geliyay maadaama dadku ay jecel yihiin markaas waxaan rajaynayaa inaan ka soo baxo oo si fiican aan uga soo baxo ayaan rajaynayaa shakitaas kuma jiro su'aasha kale maadaama matalasulaysaa wadi weydiisay maadaama aan taageerayaasha ugu badan haysto xusbi aan iska sharaxana haysto dhaqaalana aanu haysto aan isku sharaxo ma dhici karto inaan talaasulo sababtoo ah wadani waliba xaq ayuu leeyahay inuu sharaxo ma garanaysaa oo la doorto waa qodob dastuuri ah markaas aniga musharaxnimadaydu waxaan ku soo jiray ilaa 6 sanadood dhaqaale fara badan baa iga baxay waxaan hantay dad aad u fara badan oo taageerayaal ah markaas sabab aan u tanaasulo haba yaraata haba badnaatee ma jirto waa muqaddas lama taabtaana waxay ku xiran tahay tanaasulkaygu de taageerayaasha oo aan waayo taageerayaal waan haystaa xusbaan iska sharaxana waan haystaa markaas musharaxnimadaydu waa lama taabtaan waa muqaddas habar jeclaan u sharaxanahay buuhoodlaan u sharaxanahay deegaan weyn baan ka sharaxanahay deegaanka inaan codka ka soo helayaan qabaa markaa mar walba way jirtaa musharaxnimadaydu waana jiri doontaa insha Allah bidmillahi kariim haddii ilaahay naftayda daayo deegaanka loo qabanayo waxyaabahan sidaa wad qabanaysaa waxaa ka mid ah dhaqaalaheenu waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha nool kama faa'iideysano waxaa loo dhaqaa sidii 1 milyan year loo dhaqi jiray xoolaha hab casri ah oo xoolaha loo dhaqo oo ka tayo badan kana waxtar badan ayaan keeni karaa wadanka waxaan dadka barayaa sida looga faa'iideysto dalagga beeraha iyo dalagga badda iyadoo loo baahan yahay in aad uga faa'iideysano waxaan dadka barayaa in ma garanaysaa loo gargaaro ama waxaan u dagaalamayaa xuquuqda haweenka iyo carruurta waxaan dhisayaa oo aan aad iyo aad ugu dagaalamayaa waxbarashada caafimaadka waxaan isleeyahay waxaad keeni kartaa wadanka ilaa 30 hay-adood oo ma garanaysaa deegaanka bariga had iyo jeer waxa la yiraahdaa galbeedka Somaliland waxa la yiraahdaa hay-adihii oo dhan bay wada qaateen waxaan rajaynayaa ilaa 30 hay-adood oo khaasatan ugu shaqeeya dadyoga bariga Somaliland ka yimi inaan keeno marka waxyaabahaas oo dhan ma jecelahay isbedel ku sameeyo insha Allah ana ilaahay waa ila barbar qabanaya waa ila qabanaya ha waa hagaag gabagabadii ku jirnaa kulli waxaad ka timi qurbaad ka timi maadaama aad qurba ka timi
dalkii dowladda waxa soo laabatay inaad maartay dalkii aad wax gashato waxyaabo ku calaamadsan ma jiraan oo aad is leedahay pointiga wala si khaldan baa loo qabtay waan toosinayaa oo xildhibaanadii hore kala maartay is leedahay ama dadkii hore maartay dadka deegaanada bariga laga soo doorto ama maartay wasiir ha noqoto ama xildhibaan ha noqoto aad dadku uga caawdaan waxay dhahaan ma soo noqdaan wax qabadna kuma soo celiyaan booska markay helaan way iska tagaan adiguna qurbaad ka timi ma laga yaabaa intaad xildhibaan noqoto dibatana qurbihi aad u dhoofto ama halkaan ugu yar noqono sharax ma horta aniga qurbaha waan ka soo go'goosanayaa in badan baan qurbaha ku jiray ingiriiskan markii hore joog jiray markii dambana Mareykan baan wareegay markaas waqti ugu filan oo qurbaha aan ka soo shaqeysto ama aan wax ka soo barto waan joogay horta anigu wadankan soo degay wadanka haddaan soo degana xildhibaanada ma garanaysaa Hargeysa aqalka ka gala ee aan ku soo noqon burco iyo qurulugud iyo boohooda ma ahaanayo halkan burco ayaan aqaladeeda ka dhistay ilaa qurulugud insha Allah bismillaah kariim aqalaan ka dhisanaya ilaa boohoodle marka anigu dadkan meel la soo degaya dadka ayaan meel la soo degaya waxaana had iyo jeer waxyaabaha wax laga bedelo xildhibaanadii oo dhan waxay isugu tagaan deegaanka Hargeysa wasiiradii oo dhan iyo agaasimayaashii oo dhan iyo dawladdii oo dhan waxay isugu tagaan deegaanka Hargeysa waxa aan dhiirigelinayaa in wasiirada la qaybiyo oo qaar la sacaanood ay base u noqdaan qaar ay ceergaabo base u noqdaan qaar burco base looga dhigo agaasimayaasha sidaas leeg hay'adaha dawliga ah sidaas leeg ma aha dawladda oo dhan in ay Hargeysa ku ekaato marka waxaan dhiirigelinayaa in dawladda la qaybiyo oo deegaanada Soomaaliland loo qaybiyo si ay tayo fiican u yeelato ama dadkii ay uga warhayaan waxa kale oo aan aad iyo aad u dhiirigelinayaa dastuurka Soomaaliland waa qabyo aad iyo aad qabyo yahay iyadana waxaan dhiirigelinayaa marka xildhibaanka noqdo in la furo oo wax laga bedelo waxyaabo badan u baahan yahay laga bedelo waxyaabahaas aan jecelahay inaan magaraysa wax ka qabto abkayga iyo taageerayaasheeda meel walba ay joogaanba ilaa boohoodle ilaa magaalada burco ilaa qurulugud ilaa iyo coodanle waxaan leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin inay ugu adkaysataan oo ay taageertaan waxaan idinku codsanayaa inaad taageerada sii kordhisaan oo ma garanaysaa aasii laba laabtaan anigana waxaan rabaa inay igu ceel bixi doontaan inaan idin hiilin doono in maalinta ay baahan tihiin aan idin joogi doono aan idin iman doono tabashadiina aan wax uga qaban doono marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay doortaan inay taageerada sii badiyaan inaan wada shaqeyno saasaan ku dhiirigelinayaa insha Allah bidna kariim aad u mahadsantahay